hadday tahay markii kugu horreysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabdifataax Ibraahima. xaggaad nagala socotaana waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar very basic ah oo muhiim ah. computerkaaga qaabka maxay ahayd muuqashadiisa aad wax uga bedeli karaysid maxay ahayd qaabkan ay u dhisan iconskaagu ama desktop iconska adigoo isticmaalo wax loo yaqaano desktop icon toy wax la dhaho ayaa isticmaalaysa. Marka waxaad ka bedelaysaa qaabkan computerkaaga uu desktop kuu muuqdo, mar waxaad ka dhigi kartaa shapes kala duwan, triangle, polygon, waxyaabahaas oo dhan qaabkaad uga dhigan karaysid ayaan maanta eegi doonaa insha Allah ta'ala dila ka dhigo. Marka casharkaas ayaan maanta ka hadli doonaa. Okay, ayaan gudagal casharka. Okay, waxaad soo download galaysaa maxay ahayd desktop icon tayga marka waxaad kasoo download galaysaa official site-kooda waxaad ku qori doontaa idesksoft.com/download ama maxay ahayd linkiga ayaan soo dhigi doonaa description-ka markaas ayaad riixi doontaa. Marka versionka computerkaagu iyo Windows-ka isticmaalaysid ayaad maxay ahayd ku qiimeynaysaa. Haddii aanad garaneyn Windows-ka isticmaalaysid waxaad tagi doontaa maxay ahayd Windows-ka ku dhufan doontaa kadibna waxaad baari doontaa PC baad ku qori macnaha waxay u taagan tahay personal computer. Let's say PC baan qoray. PC markaan qoro waxay soo baxaya maxay ahayd this PC right click baan siinayaa kadib waxaan oranayaa properties-ka markaan tago xaggaasan ka goonaya versionkan isticmaalaya noocu yahay maxay ahayd computerka ama Windows-ka igu jira. Okay, systemka xagga arkaysa system type-kiigu waxa weeye waa 64-bit operating system. Okay, oo x64 weeye. Haddaad aragto x68 waxa weeye 32-bit. Okay, saasaad ka ogaanaysaa. Okay, so marka iminkan waxaan download garaysanayaa maxay ahayd 64-bitka. Okay, 64-bitka markaan download garaysto xagga maxay ahayd waxaan ku download garaysanayaa let's say desktop-ka. Save baan oranayaa kadibna wuu iisoo degayaa. gebigiisaba waa 1 MB wax ka yar. Okay, markii soo dego waxaan oranayaa click kadibna waxaan oranayaa run. marka horan ugu shubto marka la ka xusay qaabka loogu shubanayo yes baan oranayaa kadibna English baan oranayaa okay baan oranayaa kadibna waxaan oranayaa next kadibna waxaan oranayaa I accept the agreement kadibna waxaan oranayaa next baan oranayaa desktop-ka igu sameey baan oranayaa kadibna yes baan oranayaa install baan oranayaa ignore baan oranayaa finish. Okay, markaad download garaysid maxay ahayd installation-kan aad dhamaysid waxaad tagi doontaa xaggan aad tagi doontaa calaamadiisa maxay ahayd xaggan ay ku taallaa. Okay, kadibna right click baad siin doontaa kadibna waxaad tagi doontaa xaggay ku qoran tahay layout-ka si aad u timadba layout-ka ama qaabka u ekaanayo computer desktop icon-kaaga kadibna waxaad dooran doontaa let's say aan doonto taa hore waxaan oranayaa okay, so basically waa arkaysaa qaabka uu dooranayo. haddana mar labaad aan tagi doonaa waxaan oranayaa right click layout-ka ayaan tegayaa kadibna start baan tegayaa. start markaan tagto waxaa xagga joogo pointed start 5 pointed waxaa 6 pointed a lot of ayaa igu jira xaggan. Okay, marka waxaan doonayaa let's say 4 kaan dooranayaa. Okay, 4 markaan doorto uu tegayaa. Okay, so marka xaggan waxaa ku yaala dhammaan shay fara badan doonan kasba let's say qaab kala dooran karaysaa aan click siiyo click markaas xaggan ay soo baxaysaa. xagga sad ka arkaysid mouse-ku wuxuu leeyahay hover-ka marka waxa weeye dancing-ka sameynaya maxay ahayd folder-iskaygu haddii doonayna inaan bedelo ama aan maxay ka dhigo maxay ahayd mid taagan waxaan tagi doonaa general xagga dancing-ka haddaan ka qaado waxay noqonaysaa mid caadi noqonaysa. Okay, let's say waan ku celinayaa waxaan doonayaa tusaale ahaan oo kale inaan tago maxay ahayd layout-ka xaggan customization baan ka samayn karayaa. Okay, let's see kaasan doonaya inaan xagga ugu sareeyo topka halka imika yaala Camtasia inaan isaga saaro ayaan doonaya. let's say top baan oranayaa kadibna waxaan oranayaa save. Okay, waan dooranayaa kadibna top baan oranayaa automatically wuxuu tegayaa topka ayuu tegayaa. Okay, so qaabkaas waxaan samayn karaysaa maxay ahayd customization-ka qaabka loo yaqaano. let's say haddana waxaan oranayaa okay okay save baan oranayaa. let's say waxaan bedelo triangle baan ka dhigay. let's say isaga xagga sare hadda jooga soo ma. Okay, let's say waxaan oranayaa bottom baan oranayaa. Okay,
save oranaya okay bottom side arkaysiis isbedelaya okay see marka waa qaabka ugu fudud bedeli kartid desktop iconskaaga maxay ahaydee adoo isticmaalaya softwareka loo yaqaano desktop toy iconka versionkiisa hadda isticmaala 5.0 okay waxyaabo fara badan baa xagga ku jirta marka qaabkaas unbaad wada samayn karaysaa maxay marka doonaysid inaad wax ka bedeshid okay marka haddii casharkan aad u aragtay helpful inuu ku yahay ama uu ku caawiyey maxay ahaydee waxaan ka codsanaa asxaabta haddii kusoo biiro channelka sidoo kalena aad iigan la wadaagto aad u mahadsantiin haddaad doonaysid inaad ku celisid maxay ahaydee qaabkii hore computerka ku ahaa sida caadiga waxaa odhanaysaa right click sort by name baa odhanaysaa ma qaabkii kugu samaysnaayeen kadibna uu ku noqonayaa qaabkiisii okay marka casharka lameentii ku kulmayno wasaasiyo nabadgelya